xarunta TV-ga qaranka uu ku leeyahay waddanka Kenya ayaa dib u habayn ballaaran lagu sameeyay dhinaca xafiisyada iyo qalabkaba taasi oo lagu kordhiyay hal xafiis hal studio hal qol oo lagu talagalay dadka martida ee soo booqda xafiiska kamarado iyo kombiyuutarraba tan iyo bartamihii sanadkii hore oo TV-ga qaranka uu aasaasay inuu ka howlgalo waddanka Kenya ayaa hore waxa ugu shaqayn jiray goobo ku meel gaar ah taas oo uu imika yeeshay xarun rasmi ah oo loogu soo hagaagi karo isagoo xarunta TV-ga qaranka ee guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uu kala qayb qaadan doono toddobaadkan soo socda dhinaca barnaamijyada wararka xayeysiisyada iyo dhammaan baahinaha kala duwan ee ka baxa ama laga muuqdaalacdo TV-ga qaranka iyadoo aasaaska xarunta TV-ga qaranku ku leeyahay waddanka Kenya asaaskeeda uu saldhig u ahaa Xasan Saleeman Labsalaah ayaa agaasimaha guud ee TV-ga qaranka Axmed Saleeman Dhuxul uu intaasi muddadaasi sanadka ah ku dhiirigelinayay sidii ay dadaalkooda halkaasi uga sii wadi lahaayeen ama aanay shaqadooda uga caajisin warkoodana uu gaarsiin lahaa mas'uuliyiinta ka sarsaraysa sida agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Faysal Cali Sheekh oo hadda loo bedelay wasaaradda arrimaha dibadda waxaa sidoo kale muddadaasi yare kooban ee xilka hayay dadaalkiisu uu ka muuqda dalka iyo dibadda badan lagana dheehan karaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdi Yuusuf Ducaale Boobe oo ay garabka shaqaalaha Kenya u aqoonsadeen buuxshe waxaa sidoo kale si toosa xarunta TV-ga qaranku ku leeyahay waddanka Kenya ula shaqeeya oo aan marnaba ka caajisin madaxa wararka Maxamed Xuseen Cali iyo ku-xigeenkiisa Axmed Saxardiid iyo madaxa barnaamijyada Xuseen Cabdilaahi Deeqsi wasaaradda warfaafinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku tala jirta sidii wadamada Afrika oo dhan looga furi lahaa xafiiska TV-ga qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo bilahan soo socdana aan ku dadaali doono sidii aan uga furi lahayn wadamada aanu dariska nahay ee Uganda iyo Tanzania Cabdilaahi Cabdi Cali TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Nairobi